وفرس تي في أو فيد كستات كلاس عن كرتان وركة جيس كي يجي سومالي دكتور تفكرت انت عنا وركة نعاو وجود قليل فضل سبسكرايب صار شمالكم ساعد رصعت حقها هاد قوة وجودا بيا لايك أنا هنجي لوجن فكر كأنا خاص نقول رجلنا استوداك أصحاب هذا وشرده وهي ولد وركة عن دينها نعاو وقول ليسن فرق عنك أها محد الله صالح سيكون ليسن يحور كلنا وحكمده عاد السوداء عفسي آد بدأ لقدريمية في بيالف أو شغتين الشرقية طبعا كل عسكري كدل العزمة أبيي يكوي سياس والقراء يعيس فود إستاي قضبك هلا أيها عدنا وصدق هذا وركة صوت الفريق سن وركنا وحايدين السعودين يعني قاء مروة سيرية حرمت اللغة في مجدل كيتوبيا مقالة عد السباء يا لقد دريمي عفسي هذا الضغن إذن أيال الصوبة ويوضوالبا وحين ددك ويدين ينكارك قنصلة الديان وذنين والحرية وحلقة قبس قوائنا يورمضو كحواني يقللاسو لديكو أهدارشة ساي سميسو حالي وحا حافظة بولي مكائيل سومالي دكتو لغاقة قبطي كوحدة لنيرا أرماءها وشادك كقناعصدا وصولوتا حالي جيلك حافظة سيبولي انت بدن وحا حالي مانتا يإلا عاو حران دمان قوبها قناعصيا شعبك ayaa wadnaha farta ku haya cod ay bixiyaan iska daayay waxaana yaraaday isu socodka shacabka ee magaalada suuqyadii saxmadda ahaa ee ganacsiga hoteeladii cuntada iyo fadhiyadii la isugu iman jiray ayaa rawaxsan cabsida ugu badan waxaa qaba shacabka waxayna ka cabsi qabaan inay qaraxyo dhacaan ama hardankii axmaaro iyo oromo ee lahaanshaha caasimadda Addis Ababa la iskaga hor yimaado kadibna qalalaaso boob iyo bililiqo bilaabato ama adeegayaasha TPLF iyo jamaacadda xoreynta oromada ficilo amniga lidi ku ah fuliyaan sabab diidmada doorashada dhacaysa la xiriidha haddaba iyadoo ay wado walba ciidamada boolisku tuban yihiin haddana qulubta shacabweynaha Addis Ababa ma degana oo waxaa luntay kalsoonidii shacabku ku qabay dowladda waxayna isleeyihiin kolley waxun baa dhici dhalinyaro aan khadka taleefanka kula xiriiray oo ku sugan xaafadda Bole Mikail ee Soomaalidu degto waxay xaqiijiyeen inaysan guryahooda ka baxaynin wax codayn ahna aysan dhiibanaynin weliba iyagoo qaarkood haysta kaarkii codbixinta waxay intaasii raaciyeen inay saadkoodii cunto iyo cabidba sii gateen laba beri ka hor maadaama uusan hoteel furnayn maanta iyo beriba cabsi badanna ay jirto oo dhanka amniga ah dadka Addis Ababa waxay ilaa xalay isfariimeynayaan inaysan guryahooda ka soo bixin ilaa doorasho ku sheegto ka dhacayso haddaba meesha xaalkeedu sidaa yahay ee cabsida xad-dhaafkii ka jirto la isuna dardaarmayo inaan guryaha laga soo bixin inta doorashada la sheegi dhacayso yaa codaynaya oo doorashada loo qabanaya haddiiba shacabkii codayn lahaa ee doorashada loo qabanayay xaalkiisu sidaas yahay su-aashaas jawaabteeda idinkaan idinka tagnay ciidamada jimhadda TPLF ee qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay inay guulo laxaad leh ka gaareen dagaalka ay kula jiraan ciidamada huwanta ee Itoobiya iyo Eritrea waxay sheegeen inuu toddobaadkan gudihiisa 12 goobood dagaalo culus ku dhex maray labada dhinac kadibna ay TPLF ka laysay ciidamada huwanta ee ku soo duulay deegaankooda ugu yaraan 15,000 oo askari kana furteen saanad aan cadad lahayn oo isugu jirta hubka fudud midka culus iyo gaadiid dagaal oo aad u tiro badan TPLF waxay intaas ku dartay inay ciidamada abiyi ka qabteen saraakiil iyo askar ilaa cadad walaa xisaab ah oo ay hadda gacanta ku hayaan afhayeenka TPLF oo fariin ardaygiisa Facebooka ku soo qoray ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysta ciidanka TPLF ay tahay inay cunto ay siiyaan u leeyihiin kumanaan maxaabiis ciidan ah oo ay ka qabteen ciidamada huwanta ee abiyi iyo Isayaas hadalkan waxaa ka horreeyay oo afhayeenku sheegay inay maalin dhow qaban doonaan caasimadda Maqale kadibna uga sii gudbi doonaan arad kiilo iyo Addis Ababa TPLF ayaa hadalka ku soo gabagabaysay inay dileen saraakiil sare oo ka mid ah ciidamada militariga ee abiyi waxay sheegeen inay dileen Cornel Masfin commanderkii divisionka ciidanka 31 Cornel Hussein
commanderkii divisionka ciidanka 11aad iyo dhammaan ciidamada divisionka 11aad iyo 13aad. duleedka magaalada Erar ee xarunta degmada Erar ee gobolka City waxaa shalay ka dhacay dagaal galeed dhexmaray labada beelood ee walaalaha ee Gurgure iyo Ciise. dagaalkan ayaa ku bilowday beer la isku haystay oo ay baryahanba isku horfadhiyeen labada dhinac oo midba midka kale u humursanayay. haddaba marka laga yimaado in maalmo ay dadkaasi is horfadhiyeen lana kala gaari waayey, maalintii daraad ahayd ayay maamulka degmada oo ay horkacayaan gudoomiyaha degmada iyo hoggaanka nabadgelyada ee degmada odayaasha dhaqanka ee labada beelood ku dhaheen dadkaas kala gaala intaysan xabaddu qoriga afkiisa ka bixin. meeshii ayay tageen isla labadii dhinac oo is horfadhiya oo isu hubqaatay ayaa ku yidhi waan isdilaynaa kala badbaadiya idinkaa dowladii ahe. kala qabashada iyo xataa ciidankii ayay ka soo celiyeen oo ay dhaheen hal askariyaan halkaas lagu arkin, iyagoo kasoo wada noqday macal askartii kuna soo noqday magaalada. shalay oo axad ahayd ayay xabad isku bilaabeen labada dhinac, waxaana ku dhintay Axmed Maxamed Cumar iyo dhaawac labada dhinacba ah. kadib ayay ciidanka liyugu kala dhex galeen, kalena qaboojiyeen ilaa haddana ku kala dhex jiraan. balse maamulkii degmada ee mas-uuliyadda sida gaarka u lahaa iyo gobolba ilaa hadda ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo ay u yeesheen dhacdadaas xanuunka badan, taasoo kutusaysa inay maamulka degmada iyo kuwa gobolka iyo kuwa heer deegaanba ay arrintan si toos ah ugu lug leeyihiin kana dambeeyaan, islamarkaana ay iyagu xaaladan abuurayaan. taasina waxay ku cadaynaysaa inuu dagaalkani yahay mid gacan ku rimis ah oo maamulka degmadu sida laamaha ammaanka u qaabilsan ay rabaan inay labada beelood ka dhex qarxiyaan dagaalo cusub, kaasoo gogol xaad u ah dagaal sokeeye oo ay rabaan in laga huriyo gobolka si shacabka looga jeediyo xaaladda cakiran ee kasii daraysa ee galbeedka gobolka City oo ay sababta ugu weyn leeyihiin maamulka deegaanka, kuwa gobolka iyo kuwa degmooyinku ee gobolka City. haddaba waxaan kula talinaynaa maamulka intooda aragtida saliimka ah leh iyo dhammaan waxgaradka iyo dhalinyarada aqoon-yahanka ah inay isku duumaan oo ay arrintaas si degdeg ah u xaliyaan, kana digtoonaadaan dhacdooyinka dhabarjabka iyo mahadnada u horseedaya. taas beddelkeediina ay kasoo horjeedsadaan maamulka degmada, kuwa gobolka iyo kuwa heer deegaan ee dhacdadan iyagu abuuraya iskana horkeenaya beelaha walaalaha ee nabadda ku wada degan. qaar ka mid ah goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu dagaalku ka dhacay oo aan waraysanay islamarkaana aan labada beelood midkoodna ahayn ayaa noo sheegay inay beesha ciisuhu gardarrada ugu badan ay iyadu leedahay oo xoog iyo awood rabto inay beero uga qaadato beesha Gurgure ee masaakiinta ah, maadaama aysan beesha Gurgure awood ku lahayn deegaanka. haddaba waxaan beesha Ciise u sheegaynaa inay awoodda iyo xoogga ay ugu faanayaan beesha walaalahooda ee Gurgure ee masaakiinta ah ee ay ka tabar badan yihiin ay ka joojiyaan, ilaahayna ka baqaan, dagaalkan ay ku qaadayaan iyo beerahan ay rabaan inay xoogga uga qaataanna ay ka daayaan.